السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالقة وولاشين الزيو ما أنتو حينوها يا sheekada soo la magac baxday alif leel waleel kun habeen iyo habeen sheekada waa sheeko aad iyo aad u dheer buuga alif leela waleel waa dareemi kartiin buug la qoray alif leel waleel waa kun habeen iyo habeen buugaas caanka sida caanka u ah waxa laga soo dhax saaray sheekooyin tiro badan hadee sheekooyin caadi ah haleed iyo sheeko kartoon hadee ahayd sheekooyinka laga soo dhax saaro waxa kamid ah Ali Adiin iyo Yasmiin Sandibaad Ali Sambiq Ali Baba iyo 40 kituug sheekooyinkaas ay aad wada soo daawateen ama aad aragteen ama aad maqasheen waxa kamid ahaayeen alif leel waleel asaliyan intuu ka yimid alif leel waleel sidee u dhacday asxaabta qaaliga la socda sheekada meesha asaliyan ka timid iyo sidee u dhacday walaashin ziyo idin leh fiidiyoga la gareeya share gareeya LAGA wax badan ayu aniga ii tiraya subscribe okay waxaan gudaha u sii gali doonaa sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay boqor lagu magacaabi jiray Shar Yaar iyo xaaskiisa Sharzaan boqorku waxa la dhashay wiil waxa jiri jiray boqorada kamid ah boqorkaas oo xukumi jiray meel u dhaxayso Hindiya iyo Shiinaha meeshaas waxa lagu magacaabi jiray Sharzaan waxa deganaa nin boqor ninkaas boqor wuxuu haystay laba wiil labadaas wiil lagu magacaabi jiray Shar Yaar iyo Sharzaan labadaas wiil waxay dhaxleen boqornimada aabahooda muddo waxay ka tali jireen laba tuulo laba xaafadood oo isku dhow nin walba wuxuu boqor ka ahaa kom asiga u go'an boqorka geeridiis kadib wiilka weyn wuxuu xukmi jiray isla gobolka ee deganaayeen walaalkiis ka yaraa oo magaciisa la oran jirine kadib geerida aabahooda labadii wiil waxay la wareegeen boqornimadii magaalada ee rasmi ahaan u deganaayeen waxa xukunka ku wareegay kan weyn ka yar oo lagu magacaabi jiray Sharzaan ayaa wuxuu asna xukumi jiray meel lagu magacaabo Samarqanda muddo dheer kadib labadii wiil waxay wada yeesheen xaasas maalmaha kamid ayaa waxa dhacday wiilka weyn in uu u xiisay walaalkiis ka yar boqorkii weynaay ayaa wuxuu fariin u soo diray walaalkiis ka yar asigoo u soo adeejiyay wasiiradiis kamid ah wuxuuna ku yiri u tag walaalkay una sheeg in aan u xiisay aan rabo aragtidiisa kii yaray asigana oo koom boqor ka ah ayaa isla markiiba walaalkiis jawaabtu celiyay kadib boqorkii yaray ayaa gurigiis wuxuu ka soo baxay reerkiisna u soo sheegay in uu marti u yahay walaalkiis ka weyn kun soo maqnaa doono maalmo meesha boqorka ayaa tuuladiisa wuxuu ka soo ambabaxay asuu ku sii jeedo meesha walaalkiis ka taliyo kadib boqorkii markuu sii maray musaafo u dhaxayso gurigiisa iyo guriga walaalkiisa kala bar ay wuxuu soo xasuustay wax aad u muhiim ah kadib uu soo laabtay ciidankiisa wuxuu ku wargeliyay in uu dib u laabanayo alaab soo qaadanayo uu soo laabtay gurigiisa markuu yimid wuxuu la kulmay wax aad u xun xaaskiisa ay wuxuu ku arkay adoomadiisa kamid ah kadib boqorkii wuu carooday wuxuu qoorta ka jaray xaaskiisa iyo adoonkiiba kadib uu iska soo baxay wuxuu soo abaaray guriga walaalkiis ayuu wuxuu u yimid asigoo aad u careysan carrada wajigiisa ka muuqatana aan la soo koobi karin walaalkiis ayaa ku yiri maxaa kuugu dhacay safarkii dheer aad soo martay maya ayuu ku yiri waa daalanahay waxba ha i wareysanin kadib markay islaameen waxa loogu talagalay meel aad u qurux badan oo lagu soo dhaweey martida ugu qaalisan boqorkii weynaay markuu la yaabo murugada walaalkiis heeso oo wajigiisana marna aan ka baaba'eenin wuxuu go'aansaday inuu dhaho ina mari aan soo kulumeysano aan soo ugaarsano kadibna aan farxad soo qaadano si aad isku furfurto caradan tirada badanna ee kaaga baaba'do boqorkii yaraa ayaa ku jawaabay maya aniga ma bixi karo adiga orod iska bax إن شاء الله لكن وحنا وصل لعوضهم أنيقو فرحسن كي ويناي أيا وحنا قوان كقات إنه أتصدق وغارسيجيسة وحنا هرقصي كحست عيدن كيسة إيه رماش قاليهيسة كذب بقر كي يراي وحلو دياري أما وكسوجين هاي مال وقرح بدن ده قديس وحكو آدن إن حديقة أما مش وقرح ضبطنات وجرجل هاي مش وحكو تعالوا جذو قرحان بيو أو لجود دواشة
fadhi la fadhiisto si uu walaalkiis waqti ugu sii qaato oo u sii fiirsado meeshaas waxa hore ugu sii diyaariyayba boqorkii weynaa kii yaraa asoo murugadii iyo dhibaatadii ku soo dhacday marna aan nidiiska go'i karin iloobi karin oo aad u diiqaysan ayaa markii dab wuxuu istaagay daaqada boqorkii ayaa asigoo daaqada iska taagan oo meelaha quruxda badan inkastoo dhaawaca ku yaal qalbigiisa meel ugu go'an aan jirin ayuu hal mar wuxuu indhaha ku dhuftay xaaska walaalkiis taasoo dhinacyada la socdaan 20 shaqaale iyo 20 adoon asigoo la yaaban wax meeshan ka dhacayo asiga hal mar wuxuu indhaha ku dhuftay xaaska walaalkiis kadib xaaska wixii labisneed dharka jiifka dhinacyada waxa socdeen 20 shaqaale iyo 20 adoon asiga taas waba ama kaagay la noqotay indhuhu la sii raacay kadib maxaa dhacay ayagiyaabo laba kala isku jeestaybo kama marno xaaska walaalkiisa ninkii murug baa u sii zaa'iday gaasnaagtiisa hal nin ayaa ku qayaantay haddana wuxuu u jeedaa 20 nin oo walaalkiis lagu qayaanayo asoo yaabkii iyo amagaagii afkaba tegay ayaa waxaa soo laabtay walaalkiis caradii waxa u sii fuushay cara kale aad u xanaaqsan yahay waa walaalkiis aad u la yaabo wuxuu ku yiri balanta iga qaaday aaway soo iguma dhihin haddii soo laabto anu caadi ay soo laabanay markaas wuxuu ku yiri abow iga raal noqo waxaan ku sheegaa oo yiri caradeedii koowaad laakiin ay weydiino yiri carada labaad oo hadda aan la kulmay walaalkiis ayaa aad u la yaabay wuxuu yiri waayahay baltan koowaad ii sheeg markaas wuxuu ku yiri markaan ku soo aaday anoo masaafo dheer guriga ka soo dhaqaaqay ayaan waxaan soo xasuustay hadiyad hadda kor ay siisay waxaan is iri adigoo hadiyada walaalka wato u martigal waxaan dib ugu laabtay gurigeyga waxaan la kulmiyo yiri waxaan aad u la yaabo aan jeclaysanin kadibna dil ayaan ku dhaqaaqay dilkaasoo ah waxay indhahayga qabteen oo yiri xaaskeyga iyo adoonkeyga is agjiifo labadaba waa soo dilay walaalkiis ayaa aad u la yaabay wuxuu yiri arinta ka sii yaabka badan oo meeshan kula kulmi karo walaalka muxuu yahay boqorkii weynaay ayaa wuxuu yiri arintii hore waaba ii sheegtay taas tan ka sii daran oo inta aan kula kulantay walaal ilaahay baan kuugu dhaarshay ii sheeg walaalkii ayaa diiday wuxuu yiri may marna murugada iheyso mid la mid inay kula soo diristo kii weynaay ayaa ku adkaystay in uu arintan meesha kiisto u ogaado kadibna wuu u sheegay sida wax u dhaceen kan weyn inuu qosla ayuu yiri arinta soo aragtay miya wali maskaxdaada ka guuxayso maxaa kuugu dhacay mayu ayuu yiri waa xaqiiqo sidaasay u dhacday kan weyn asigoo wali yaaban ayaa kan yar wuxuu yiri waayahay ma rabtaa in aan cadeynteed aad aragto waxa sameeysaa uu yiri xaaskaaga u tag waxaas u sheegtaa in aadan dib ugu laabanaysid kaluumeysigaagii iyo ugaarsigaagii kadibna ciidankiisa ay wargeliyay in ay baxayaan wiilkii yaray ayaa fikradaas iska lahaa boqorkii weynaa wuxuu sameeyay ciidankii ayuu amba bixiyay asigan wuxuu ku soo dhuumaaleystay qolka walaalkiis saacad kadib xaaskiisii iyo 20keedii adoon iyo 20keedii shaqaalo sidoo walaalkiis hore ugu sheegayba waxay ka soo muuqdeen gurigii ayagoo u soo socda xadiiqadii boqorkii weynaa ayaa la yaab la noqotay arintii kii yaraa ayaa yiri wali waxba ku dhiman isdeji kadib meeshii waxa ka dhacay wax aad u fool xumo badan hadana boqorkii weynaa uu adkeysan waayay wuxuu ku dhaqaaqay isla walaalkiis arintuu ku dhaqaaqay wuxuu nafta ka qaaday xaaskiisa iyo 40kii shaqaa'een adoomo la socdeen kadib labadii walaal way tashteen waxay dheen hadii ay dumarka sidaan u qiyaano badan yihiin aan isku aamini karin hadii aan boqornimada iska deeno oo iska baxna ka waran adduunkan ilaahay sidaan u weynay haddaan dhinaceyna ka raacano kii weynaa ayaa haye ku yiri oo amba baxeen muddo markay socdeen oo masaafo xoog badan ee mareen ayaa waxaa mar u soo muuqday war ama bali sida u taqaanid oo geed weyn ku dhinac yaalo waxay ku heshiiyeen inay baligaas biyo ka cabaan ayagoo biyihii cabaaya ayaa mar qoro dhulka waxa uu soo baxay geed gaaban ayagoo naxay dib u carariyo geed gadaashiisa galay oo sas u fiirinayo ayaa waxay arkeen geedkii dhulka ka soo baxay oo iskala furay kana soo baxay jin ama carfiid sida u taqaanid carfiidkaas wuxuu gacanta ku watay sanduuq aad u weyn kadib wuxuu furtay sanduuqii
صندوق waxa uu soo dhaxbaxday gabar aad u qurxoon kadib waxay soo aadeen carfiidkii iyo isla gabadhii geedkii ku dhuumaaleysanayeen labadii walaalo wiilashii aad ay u baqdeen waxay durba fuuleen geedka korkiisa carfiidkii iyo gabadhii waxay fafadhiisteen geedka hoostiisa waxa kadib carfiidkii uu hurday wuxuu ku dul seexday gabadha jilbaheeda gabadhii ayadu iska daashay oo geedkii santeecsatay oo kor fiirsay waxay ku aragtay labadii wiil oo geedka saaran kadib waxay tiri soo dega wiilashii aad u baqanayo ee waxay ku tiri labo inakeenii jirtaa ina carfiidka idinku kacasho oo idin dilo ama waxa aniga rabo inay ii sameysaan codsiga ee ka codsatay waxay ahayd in ay la seexdaan nimankii aad ugu gilgilay cabsi badanna muujiyay kadibna waxay go'aan ku gaareen hadiiba gabadhan waxay rabta aan u sameeyno أنا فصيحة وأنا نفسي دينا بتبسنا كدب قبضي وحي إربتي وصميان قبضي وحي وقلت لي صوب بحي لودين فرانتي نمك يعني صواب وحيد الفرانتيال كان وحن كربتا نولبو وأنا إذا سدان ربي يسميه وحي إسلام مرتي جندي كلا صوب بحضي بعد وين بعد سو وجري كل دوات فرقلو شن بقول إيه كنتن حباه نمك أد ويابين وحي دهن intaanoo fargal ma waxa ka soo qaadatay nimanka adiga xujooyinkan oo ana marsiis jirtay gabadhii ayaa ku jawaabtay haddana ka baxa wadada waa taasay nimankii waxay dib ugu soo laabteen ee go'aansadeen in arligooda ku soo laabtaan xukunkoodan ay sii wataan kaween ayaa go'aankiisu wuxuu ahaa wixii gabar oo dunida saaran in uu nafta ka wada qaado oo sidee hadana wuxuu ku soo laabtay isla arligiisa wuxuu xukunka qabtay kadibna wasiiradiisa ay wacay wuxuu ku wargeliyay gabar walba oo gabar ya maahan armal gabar la soo furay gabar walba oo gabar in loo keeno kadib uu guursado caaw markay la seexatan subaxii uu dilo xukunkiisa sida ahaa gobolkii markuu gabdhihii ka dhameeyay oo wixii gabar yar qabeen ka cararay meeshii oo meelo kale oo nafsada gabdhahood ay ku badbaadsan karaan geestay ninka boqorkii wuxuu lahaa wasiir u dhow una qaabilsan keenista gabadhaas iyo dilista subaxii arintaas ayaa waxa ka hor imaadeen hooyooyinkii heystay gabdhaha yaryar ayagoo iskaaga hayaamay meeshii iskaagaba tagay raadsadayna meel gabdhahooda nafsadooda ay ku badbaadsan karaan ayaa muddo 3 sano kadib waxa dhacdayba wasiirkii ayaa soo baxay wuxuu soo aaday magaaladii wuxuu ka soo waayay gabar caawis boqorka loo aroosiyo asoo murugaysan ay gurigiisa imaaday gurigiis waxa ku nool 2 gabdhood oo asiga uu dhalay gabadhii weenad ayaa tiri aaba maxaa kugu dhacay uu sheegi waa arintii mar kale ayay weydiisay kadib waxay ku qancisay in uu sheego wuxuu la murugaysan yahay oo maanta oo dhan oo la fikiraayo wasiirkii ayaa wuxuu ku yiri boqorka ayaa waxaan sameey jiray haween walba gabar oo aroosi jiray subaxiin waa la dili jiray waa la socotaa wax adduunka oo ka jiro magaalada Soomaaliya caawo waxaan soo waayay gabar aan u geeyo gabadhii ayaa tiri aniga ayaa booskaas galaayo una tagaayo abi ayaa yiri muwaalan tahay ma waxaad u malaysaa inuu ninkaas runku guursanayo oo ilma ay u dhali doontid oo dunida ku sii waari doontid may gabadheeda wadadii kuwii uu marsiyo ku marsiina may ku tiri ana qorshe wato iigay qorsheeygan waxa igu li jirto walaashay iga yar markaan soo dalbado aabo ina ii keentaa ama ii soo dirtaa wasiirkii aad u qalqalay kadib wuxuu u tagay boqorkii wuxuuna wargeliyay maanta inuu gabar magaalada ka soo waayay oo u keenay gabadhiisa weyn boqorka ayaa qoslay wuxuu yiri ma la socotaa gabadha wax ku dhici doono dabcan uu yiri waa la socdaa okay gabadhii weyneed markay boqorkii u tagtay boqorkii amaan horta ka badis aad u wanaagsan tahay nin garmeeda tahay nin fiican baa tahay ninkaas tahay sidee u amaantay ayuu bala dhacay boqorkii kadib maxaa dhacay wixii ku tiri caaw maadaama ay tahay habeenka dunida iyo ugu dambeeyso waxaan rabaa tir codsi inay ii sameeyay kadib uu weydiyay wuxuu yiri maxay tahay codsigaaga waxay tiri walaashay iga yar inaan arko ma intaas ahaa wuxuu isla markii u dir ciidankiisa walaashay ka yar sida loogu keeno waa loo keenay walaashay hadana waxay sii sameysatay codsigaas oo abaayay tiri maadaama aad iiga tagaysid oo dib dambe ku arkeenin waxaan rabaa hal sheekay inay iiga sheekaysid waxay tiri hadduu ii ogolaado boqorka waa u fasax inay u sheekayso sheekadaas waxa laga sheekeynay alif leel waleel
haween walbo boqorka soo sheekadii ku socoto oo qabyo oo wuxuu ku dhahaa seexo beriya u dhameystirey sida caadadu ahayd subax walba wuxuu aadsan jiray xukunkiisa iyo hoolihiisa qaaska habeenkiina asaab gabadha hore ugu soo wadi jiraybo ilaan sheekada macal asigeebu ku socotaa waa qorsho markii horeba asii loogu dan lahaa haddana se u socoto waagiyaa beriya wuxuu dhahaa iska seexo habeen danba hadan uu kamile walaasha subaxi haddana boqorka wuxuu aadsan jiray hoolihiisa muddo alif leel waleel وكن هوين إيو هوين أرنت ويبا دماتي بكن هوين شكوينكاس لغي شيكيناي بدنا دad badan baa sameystay saan ugu sheegay waxa dhacday boqorkii in uu gabadhii ka helo marmay secretin kun haween iyo haween meeqa gabdha dhala karo meeqa barbaartay meeqa dhalinyaro noqotay meeqa ay gabadhaas badbaadisay naftooda ee ayada nafsadeeda badbaadisay boqorkii isla markii wuxuu go'aan ku gaaray in uu gurigiisa u dhisnaa doono oo xaaskiisa uu iska dili doonin oo noloshoodana ee noqon doonto nolol dabiici sidii hore ee ku noolaayeen gabadhii nafsadeeda ha badbaadsato meeqa nafsad kale gabdhooday soo badbaadisay ayada maxay dunida ku soo kordhisay wuxuu ilaahay siiyay 3 caruur markii la qiimeeyay ama daraasad lagu sameeyay maalmahaas ayaa waxay noqotay 3 sano alf leel waleel kun haween iyo haween waxa uu ugu dhashay boqorkii 3 caruur kadibna go'aan uu ku qaaday waa ilmihiisa hooyadooda inuu iska dilo waxa badbaadid hooyada oo ahayd xaaskii walaasheed oo haween walba ee u sheekay jirtay iyo waxa badbaaday xaafadaas gabdhihii ku dhasheen oo dhan buugan waa buug aad iyo aad qisadiisa aan loo soo koobi karin asxaabteeda qaaliga buugan waa buug aad u qiimo badan oo haddana sheekooyinkiisa aan la soo koobi karin sheekooyinka xigan waxaan ku soo qaadan doonaa 3 ama 2 kamid ah sheekadii ay ugu sheekay jirtay gabadha walaasheeda haddii aad sheekadan ka heshay fadlan adigoo mahadsan video ii share garay legana ii saar lega muhiim ayuu yahay haddii aad igu cusub tahay soo dhawow channelka waa channelkaaga subscribe ii samee haddii hore ay la joogtidna waa ku mahadsan tahay daawashada videogan haddii ay sheekadan ku cajibisay ama aad ka heshay commentiga iigu soo qor waan soo badi doonaa intaan sheekadeeda aan kala kulmi doono waa walaashiin ziyo idin leh maalinta ha idin wacnaato